Assalaamu calaykum. Marar badan waxaa badan in qofku uu hadaf ka leeyahay noloshiisa, uuna u shaqaynayo oo uu u dadaalayo sidii uu hadafkaasi ku gaari lahaa, kuna xaqiijin lahaa. Dadka badankoodu inta ay ku guda jiraan waddada dheer ee hadafkooda ku xaqiijinayaan, waxay isdareensiiyaan mashaqo iyo dhibaato in ay ku jiraan, oo marka ay guusha gaaraan ay dabaaldegi doonaan. Laakiin mar walba waxaa badan inta uu qofka ku qaadanayo waddadaas uu hadafkaas ku xaqiijinayo. Kadibna farxadda ay noqoto iyo dabaaldegga maalmo kooban oo qura. Kadibna uu sii hanaqaado xaqiijinta hadaf kale. Saasi la mid ah, hadafkaas asna wuxuu qaadan karaa xaqiijintiisa waqti dheer. Sida tusaale ahaan haddaan u soo qaadano, qof raba in uu barto programming-ka. Waa dareemi kartaa waxaa badan in hadafka oo kale uu kugu qaato sanado. Taa waxay la mid noqonaysaa sanado murug iyo dhibaato ah iyo maalmo kooban oo farxad ah. Si aysan taa kugu dhicin oo ay noloshaada u noqonin mid aad maalintii oo dhan aad dareemaysid ciriiriyoon, waa in aad nafsadaada ugu sheekaynin fikradda noocaas ah, oo ah in farxadda la dareemo keliya marka la xaqiijiyo hadafka. Taa ayuuna muuqaalkeena maanta ku saabsan yahay. Dareen farxadda inta aad ku guda jirtid dadaalkaada aad hadaf ku xaqiijinaysid. Ee farxaddaada iyo reereyntaada ha ka dhigin mid ku guntan ilaa aad hadaf ka gaarto. Waxaan in la wadaagayaa talooyin kooban oo kaa dhigaya in aad farxadda dareentid, xitaa inta aad ku guda jirtid waddada aad ku raadinaysid hadafka iyo ujeedkaas fog. Waxaan in la wadaagayaa qodobo kooban oo kaa dhigaya kaana saacideynaya in aad dareentid farxadda xitaa inta aad ku guda jirtid waddada aad guushaada ku xaqiijinaysid. Qodobka koowaad, ha weynaysan rafaadka iyo daalka. Qodobkan koowaad wuxuu ku leeyahay dhibaatada aad u maraysid hadafkaada in aad xaqiijisid iyo daalka ha ka dhigan mid xad dhaaf ah. Micnaha si xad dhaaf ah ha u suuraysanin, hana ka badbadinin. Tusaalahan ayaa si fiican ugu fahmaysaa. Waxaad leedahay hadaf aan ka soo qaadna in aad leedahay hadaf ah barashada luqad cusub. Hadafkaasi tusaale ahaan saad u xaqiijisid wuxuu kaaga baahan yahay in aad maalintii geliso 1 saac muddo sanad ku dhan. Ha u suuraysan dhibaatada aad hadafkaas ka maraysid, sida in maalin kasta oo sanadkaas ah aad dhibaatoonaysid oo daalaysid. Maxaa yeelay hadafkaas maalintii keliya wuxuu kaaga baahan yahay in aad geliso 1 saac. Keliya 1 saac ayuu kaaga baahan yahay maalintii intaad gelisid. 24 saac ee kale ee maalintaada waxaad gelin kartaa wax kasta oo doonaysid. Waad ku nasan kartaa, waxaad gelin kartaa wax aad jeceshahay inaad samayso. Marka dhibaatada qadarkeeda in ka badan adiga ha u suuraysan. Haddii aad saas samaysona, waxay kugu keeni kartaa in aad daalkaas aad suuraysatay oo ah in aad sanadka dhan aad rafaadaysid, harjadaysid, ee mushkiladda kugu weynaysa, lagana yaabo in ay kaa hor istaag in aad xaqiijisid hadafkaada aad rabtay inaad ka meel keento. Qodobka labaad, hadafkaada u qaybi hadafyo yaryar. Tusaale haddii aad doonaysid inaad baratid graphic design, hadafkaasi ah in aad noqotid graphic designer, waxaad u qaybin kartaa qaybo yaryar. Tusaale ahaan waxaad u qaybin kartaa 3 software ee graphic design-ka ugu muhiimsan: Photoshop, Illustrator, iyo Adobe InDesign. Marka mid walba oo 3 software aad dhammaysid, waxaad u dabaaldegi kartaa sida adigoo hadafkaada qaybo muhiim ah oo ka mid ah dhammaystiray. Taa waxay kaa dhigaysaa in aad ku raaxaysatid waddada aad u maraysid in aad gaartid hadafkaada weyn ee ah in aad noqotid graphic designer. Waxay sidoo kale kaa dhigaysaa in hadafkaadaas uu kula muuqdo mid fudud in uu yahay oo la gaari kara, muddadana aysan saa u fogeyn. Design-ka tusaale baan u soo qaatay moogi wax kasta ood qabanaysid, hadaf kasta oo aad leedahay, waxaad ku dabaqi kartaa qaacidadan. Qodobka saddexaad, sii naftaada nasiino ku filan. Markii aan hadaf leenahay, aan u helanahay hadafkaasi xaqiijintiisa, waxaa badan in aan degdegno oo na shaqeyno waqtiyo aad u dheer isku dayno
waqtiga hadafkaasi uu nagu qaadanayo in aan soo yareyno. Laakiin degdegga wuxuu keenayaa in aad daal badan aad dareento, uuna hadafkaada kula muuqdo mid adag oon la xaqiijin karin. Qofkaasi wuxuu dareemayaa daal badan, fursadda inuu hadafkaas gaarana waxay noqonaysaa mid aad u yar. Naftaada waxba ha ku gudbin hawlo iyo shaqo xad dhaaf ah. Sii waqti ku filan oo ay ku nasato, aadna isku xisaabisid waxaad qabatay, waxaad qaladay oo ay tahay in aad saxdid, iyo waxa kuu dhimanba. Qodobka 4. Ka mahadnaq nimcada. Dadka badankii waxaa badan inay is-ilaawsiiyaan amaba ay ilaawaan wixii guulo ay soo xaqiijiyeen. Mar walba waxay ka fikirayaan waxyaalaha ay xaqiijinin ee ka dhiman. Waa sax, waana fiican tahay qofka inuu noqdo qof leh han sare, laakiin waa in aadan ilaawin inaad Ilaahay ugu mahadnaqdid, aad ku faraxdid wixii guulo ood soo xaqiijisay. Sidoo kalena ha ilaawin inaad ka mahadnaqdid nimcada aad haysatid ee ah in aad weli awoodid in aad wax badan qabato, guulo kale oo badanna aad xaqiijin kartid. Inaadan ilaawin masaafada aad soo jartay iyo waddada dheer ee inta aad maanta haysatid aad u soo martay, waxay kuu noqonaysaa dhiirigelin, waxayna ku siinaysaa kalsooni badan oo wax badan aad ku xaqiijin kartid. Intaan ayuu ku egyahay muuqaalkeena maanta. Haddii aad muuqaalka wax un ka faa'iiday, ha ilaawin inaad like saartid, lana wadaagtid asxaabtaada. Haddii aad nagu cusub tahay oo ay markaan tahay markii kuugu horreysay ee kanaalka soo booqato, subscribe saar kanaalka, inaguna soo biir, gambaleelkana furo, si aysan kuu dhaafin muuqaalada aan halkan soo gelino.